بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقال كله on isagana uga hadlayno ciwaan kale oo muhiim u ah dadka beeralayda iyo beerashada waxaan ka hadlaynaa oo qaybtan uga hadlaynaa carrada waxa waaye waa qayb muhiim ah oo la'aanteed oo ma hadaan laga shaqeynin ay gabaabsi noqonayso ama dibaato soo gaarayso wax soo saarka beeraha waxaad arkaysaa markaad dhex tagtid dadka beeralayda qofkaanu carradaan wax ku beeranaya marka wax ku beerto wuxuu sameeynaa hadana waxa laga yaabaa inuu dalagii ku celiyo oo mar laba dalag ku celiyo oo mar saddex dalag ku celiyo deetana dhulkii wuxuu leeyahay wax ka soo bixi waayay marka dambe wax ka soo bixi waayay marka maxaa sababaya inay shaygaas wax ka soo dhulkaas wax ka soo bixi waayay waxa sababaya in ku celcelinta loo celceliyo halkaas dalag ayadoo la isticmaalin waxa kale ay ka tagaan dhulka markii la diyaarinayo ama loo diyaarinayo baalkaas waxay noqonaysaa ama abuurka loo diyaarinayo in dalag lagu abuuro waxay noqonaysaa in loo diyaariyo oo loo diyaariyo carrada la baaro si loo ogaado elementiyada ka maqan carradaas oo hadhowdii inaad supplementary ahaan u siido ay sax tahay oo laga baahan yahay marka ma la baarayo waxa laga yaabaa waxa aad ku darayso ama fertilizerska aad siinaysid carradaas inay u badato isla kuwii hore ugu badnaa deetana markaas dhulkiiba oo macnaha sunka noqdo because hadii elementigu dhulka ku bato hal element ku bato in elementiskaasna uu geedku wax badan uga baahnayn wuxuu ku noqonayaa geedkii uu dib ku noqonaya waxa hoos u dhacay marka geedkii dhibaato soo gaarto waxa hoos u dhacaya wax soo saarkiisii marka wax soo saarkiisu hoos u dhacana waxa waa hadhowdii inaad waxay noqonaysaa beertaadii ay baabacdo oo wax badan ka qaldamaan marka waxa loo baahan yahay taana in laga sameeyo wacyigelin oo qalabkii wax lagu baarayay inta badan dadku waxay ku marsiyoodaan waxay leeyihiin qalabka wax lagu baarayay wadanka ma yaalo ama hal qof oo haysta halkaas qofna lacag badan buu leeyahay deetana waxa waxaad u baahan tahay dadka oo beeralayda waaweyn oo dalagan waaweyn ka beerta sida mooska oo kale hebelo marka ay sameynayaan in ay dhulka beertaan ama ay carrada baarayaan oo tala qaataan waxay sameeyaan in carraday qaadaan sambalkeeda waxay u diraan Kenya deetana waxay sameeyaan in waxay resultiga uga soo baxay soo xirtaan laakiin beeralaydan yar ma haystaan lacag ay ugu dirsadaan Kenya sidoo kale ma haystaan wadankii kama helayaan haday ka helayaan lacagtii ayaa badan oo qofkan waa monopoly kaligiisu meeshan ku haysta wuxuu ku leeyahay intaas oo lacag hadda haysan iga taw ku leeyahay because uu og yahay inaad meel kale oo ka helaysaa aysan jirin deetana waxay qasab ku noqonaysaa inay iska dhaafaan dadku oo yiraahdaan nimayow annaga intaas waan iska beeranaynaa marka waxyaabo badan oo ayadana dibkaas keenayaan ku arkay hadana waxa soo batay beeraha lagu waraabiyo biyahan caadiga oo wanyeerka ama dhulka laga soo saaro oo ceelasha biyaas ceelashan inta badan cusbada ku badan waxyaabaha cusbada ka hortagayana ma isticmaalayaan waxay sameynayaan marka hadhowdii markii dalagan lagu beero oo marka kale ma wax ku soo baxay waxa waa problem noqon carradaas inaad ama waxay noqonaya meesha iska bedesho haday greenhouse yar tahay hadii ay meel banaan taana inta carra gediso oo waqti qaadato oo geedo kale ka soo baxaan aad ka tagtid ay noqonaysaa oo waqti ay qaadato roob badan iyo wax kale ku da'an oo ay waqti qaadato marka dibkaasna wuu jiraa because sidoo kale waa laga badbaadi karaa in qofkan uu carrada ay ka dhimato hadii uu taladii saxda la siiyo oo ku soco lahay marka ayadana waxa weeye caqabad taagan oo ka taagan dhinaca carrada waaye marka waxaan rajaynaynaa in talada la qaato la maqlo oo noqoto wax oo lagu waana qaato nolosha ku sameeyso intaas ayaan ku soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi وبركاته.